بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحقيقة warar aan ka helayo Kismaayo iyo Garowe ayaa sheegaya in labadii qaswade waagu ku beriyay oo ay doorashada diidan yihiin. God hadi maha qodin haddaad qodo hadeerayn ku dhici doontidna mooji wixii ay ka shaqaynayeen ayaa la xumaaday. waxay u taalaa heshiiskii ay gaadheen maalintii dhoweyd in February lagu soo gebagabeeyo oo ay warbaahinta ka sheegeen oo gaal iyo muslimba dhegaystay. haddii uu la xumaaday 17 Sebtembar hadday la xumaatay 25 May hadday la xumaatay heshiiskii Garbaharey ee wasiiradu ay ku gaadheen hadduu la xumaaday dee war waa hawl iyaga u taala. waa qaswadayaal, waa niman aan qaran Soomaaliyeed doonayn, waa niman ragaadiyey geedi socodkii nabadda, geedi socodkii doorashada, geedi socodkii iyo mustaqbalkii dalka Soomaaliyeed. wixii laga yeeli lahaa si wada jir ah ayaa ummadda Soomaaliyeed iyo kuwan la leeyahay beesha lixaad ay ka yeeli doonaan. giiray dabaday geegeele. qodobkaa intaas ayaan ku dhaafaya. الحقيقة hambalyaan leeyahay 13 kursi ee ugu horeeyay Baraawe waa dhamaadeen. inta hadhayna biidnillaahi alkariim nabad bay ku dhamaanayaan. madaxweynaha koonfur galbeed hambalyaan leeyahay. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay Rooble isagaa laga rabaa doorashadii. cid kale oo laga rabaa haba yaraatee ma jirto. maxaa yeelay labaday qodob ee loo xilsaaray bay ka mid tahay amniga iyo doorashada. haddii ay faq lahaayeen Axmed Madoobe iyo Siciid Deni faqi waa dhammaaday. Rooblow adaa laga rabaa dhammaystirkii doorashada. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. goodigii iyo hanjabaadii Maraykanku dee war kama darin. si xawliya ayay doorashadii u socotaa. anigu natiijadan sugaya. wuxuu yidhi midigta u dhac bilaba kuma ogi, bidixda u dhac bilaba kuma ogi. 25 February lasoo dhammeeyo waa qodob waa sugaya. goodigii Maraykanka haddii la soo dhammayn waayo isagana waa sugayaa cawaaqibkiisa. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. alxaqiiqa wixii ka dambeeya electionkan
waxaan ka rajaynayaa dowladda cusub ee dhalan doonta wax kale inaanay ka shaqayn. hal qof iyo hal cod, hal qof iyo hal cod, hal qof iyo hal cod. doorashada maantan inta gobol ay ka socotaan idiin tirinaya ee dee lagu heshiiyey. boosaaso waa gobol, garoowe waa gobol, gaalkacyo waa gobol, samareeb waa gobol. halkaasi waa 4 gobol. beledweyne waa gobol, jawhar waa gobol, xamar waa gobol. 18 gobol bay ka mid tahay. halkaasna waa 3, waa 7. marka waa gobol, bay waa gobol, waa 9. garbahaarey, kismaayo waa 2. nimanyow 11 gobol bay doorashadii maanta ka dhacaysaa. maxaa diiday markaa inaynu 1 man 1 vote u gudubno? raggii markii hore diiday doorashadii hal qof iyo hal cod, bal maanta ha arkeen inay koob iyo 10 gobol ka dhacayso. alxaqiiqa qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. karis xun iyana wax kula. siyaasiga waxaa la rabaa waxa uu ka shaqaynayo inay noqdaan wax midho dhala, ee lama rabo inay noqdaan wax isaga labada lugood gooya. siyaasiyiintii ku shiraysay hotel jazeera ma aanay lahayn taarget, ma aanay lahayn ujeedo, ma aanay lahayn himilo, ma aanay lahayn. waa taa dee muuqata. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. kol haddii aadan ujeeddo siyaasadeed oo fog lahayn oo mid dhow lahayn, waxay ku soo biya shubataa uun qofkaa fadhiya madaxtooyada uun inaad iska xagxagatid. الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أرحم موتانا وأشفي مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة.